الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كسر دواد بغداد أونلاين أكاديمي يو حلقتين أسبوع لها هاي حلقتين أسبوعا وحن كسر قادم دونا إن شاء الله تعالى برنامج يقعد سدنا أصحاب تقاركود وحرير للا برنامج هوري أن هل كان أقصي ديني بيجيشك أي لا هاي أكاديمية دا oo ku saabsaneed asbaabta keena inay fashilmaan mashaariicda yaryarka ah. Marka maadaama aad sheegtay asbaabtii fashilka keenaysay, asbaabta keeni karta inay guuleystaan mashaariicda iyadan inaad wax nooga taabataan rajayn lahayn asxaabta qaarkood igu yiraahdeen. Marka insha Allah taasi anoo ka duulaya ayaan rabaa haduu Ilaahay raadinaan xalaqadaas daba dhigno. Asxaabtii aan xalaqadii hore soo dhageysanin waxay jaanis u haystaan inay xalaqadaasi dib ay ugu fiirsadaan page-keena Facebook-ga iyo Twitter-ka kulli ay ka heli doonaan, YouTube-kana waa ka heli karaan. xalaqadii aan soo sheegnay asbaabta ay mashaariicda u fashilmaan waxaad ka fahmi kartaa haddaad dhageysatid haddii ciladahaas meesha laga saaro, sababahaasi fashilka keenay haddii meesha laga saaro guula imaanayso. يعني مثلا haddaan tusaalahaan usoo qaadano waxaa ka mid ahaa booska ama goobta aad ganacsigaada ka furaysid inay tahay goob munaasab ah. haddii ay fashilka uu ka imaanaya inaadan goob munaasaba dooranin, macnaha guushana waxay ka imaan kartaa sidoo kale waxyaabaha guusha sababa ka mid ah oo weliba aada u muhiima inaad positionka ama goobta aad ganacsigaada ka furayso aada iska hubiso. sidoo kale isballaarin degdega ku jirtay inaadan isballaarintaada tartiib ay noqoto guusha waxyaabaha ay keenay ka mid tahay. marka toddobadii qodob halkaas ku xusnay cagsigooda guusha waxyaabaha keenay ka mid tahay. markaan isla iyagii marka la soo celiyo ma jeclaysanin kuwaas dib u raac ka faa'iideyso insha Allah ta'ala. toddoba kale ayaan ku dari doonaa haddii la yiraahdo. qayb ka mid ah toddobadii hal xabo ka mid ah waa ku dhex jira insha Allah ta'ala. waan rabaa inaan si gaar ah u faahfaahiyo. qodobka koowaad qof walba oo mashaariicdiisa inay guuleystaan rabo muhiimad inuu si laga rabo waxa weeyaan intuusan mashruuci bilaawin tilaabo qaadin inuu daraaso sameeyo. daraasadaasi oo uu suuqa ku sameynaya intuusan hawsha gelinba uu sameynayo, hadafka laga leeyahay waxa weeyaan inuu qofka isweydiiyo hal su'aal jawaabteedina uu raadiyo. su'aashaasina waxay tahay mashruucan ma guuleysan karaa? haddaan mashruucan fulo ma yahay mashruuc guuleysan karo? su'aashaas bas ka jawaabaya. يعني marka intuu ka fiirinaya wuxuu ka fiirinaya مثلا qarashka ku bixi karo ayuu qiimeynaya asoon hawshiiba bilaawin. wuxuu fiirinaya qalabka loo baahan yahay, wuxuu fiirinaya dadka khubarada ah ee loo baahan yahay hawshaas inay qabtaan oo ka shaqeeyaan la rabo. wuxuu fiirinaya suuqii asaga inuu galo u rabay baahidiisi baaxadda ay la eg tahay. wuxuu fiirinaya tartamayaasha suuqa ku jiro iyo awoodooda iyo inta asaga uu soo kordhin karo, waxyaabaha uu wax ka bedeli karo ku soo kordhin karo. wuxuu fiirinayaa maxaa faa'iido aan ka heli karaa aniga lafteyda mustaqbalka aan ka heli karaa oo asagoo markaas xisaab banaanka ah feasibility study baa la yiraahdaa ama daraasatul jadwa af carabigeedii. yani inuu qofka daraasada waxyaabuhu ka faa'iidayo mustaqbalka uu guul ahaan ka gaari karo inuu sii sameeyo. ugu wax tilaabo la qaado ma jirto, weli waa wax maskaxda taagan. haddii marka adiga aadan awood u lahayn, aqoon badan u lahayn, waxaad helaysaa kambaniyo ku shaqeeyo oo ka caawiyo. waxaad helaysaa dad khubaro ah oo kusoo shaqeeyay muddo dheer aad ka faa'iideysan karto, odayaal ood la sheekaysan karto. marka inaad xog raadiso intii tabartaada ah haddaadan ahayn qof wax bartay ganacsigana ku dhex jiro, fursad waxaad u haysataa inaad dadkii isla fieldigaas ama isla areadaas ka soo shaqayn jiray adiga aad la sheekaysatid, inaad dadka xafiisyada u leh oo la taliyayaasha ah mashaariicda ganacsiga dhaqaalaha ku takhasusay aad la tashatid ood weydiisid oo ay ku sameeyaan feasibility study ama daraasadaas ay ku sameeyaan. runtii waa qodob aad u muhiimsan. qodobka labaad oo aan xalaqadii horena ku xusay runtii aadna u muhiimka ah mar walbana aan isleeyahay qofka inuu ka tilaabsado ma aha inuu qorshe jira weeyaan. qorshaha qofka uu yeelanayo waxa weeyaan inuu marka hore uu hubiyo horta sideen u yareyn karaa. ilaan wixii inaan galo waa rabaa. daraasadaan soo sameeyey waxay ii sheegtay inaan ka faa'iidi kara mashruucan. qodobkan labaad ama tilaabadan labaad waxay noqonaysaa sideen ku yareyn karaa khatarta ku imaan karta mashruucayga. marka khatarta yareynteeda baad xoogga saaraysaa, dhibaatooyin ku soo wajihi kara sidaad u yareyn lahayd baad xoogga saaraysaa. dabcan marka meeshaas waxaa ku jiro qorshihii dhammaystiran bilow ilaa dhammaad.
projectigaas intuusan bilaabanin in qorshihii la qoraa la rabaa. qorshahaas wuxuu cadaynayaa projectigaas waxyaabihii u baahnaay oo dhan, hadday yihiin qalab, hadday yihiin dad, hadday yihiin dhaqaalo, wixii o dhan oo dhammaystiran ayaa marka hore ku jiro. kadibna processyadii la mari lahaa baa ku cad, policieska la isticmaala, siyaasadihii la isticmaali lahaa, siyaasadaha dhinaca maaliyadda, siyaasadaha dhinaca maamulka maareynta, siyaasadaha muxuu ahay shaqaalaha, wax walba oo qoran oo cad oo muuqato inuu qofkii uu leeyahay. kadibna qorshahaasi uu samaystay sidii loo fulin lahaa, tallaabooyinkii la qaadi lahaa, ciddii qaadi lahayd, haddii hawshan la fuliyo ciddii la xisaabtami lahayd, evaluationka qofka iska lahaan lahaa, natiijada ugu dambeysay qiimeynteeda iyo dhiraandhirinteeda cid iska lahayd, qorsho muuqdo oo waadixo cad inuu jiro aaday muhiim u tahay. qof walbana tabartiisii ayuu guurayaa. qofka dhaqaalihiisu iska yaryahay, isaga qorshaha loogu baahan yahay aad buu u yaryahay. qofka mashruuciisa u weyn yahay, dhaqaalaha iyo qorshaha iyo fikirka looga baahan yahay aad buu u weyn yahay. marka qodobkaas runtii waxaan is leeyahay aad u muhiim u yahay. sidoo kale kii hore uu la mid yahay, haddaadan aqoon u lahayn waxaad kala tashan kartaa dadka aqoonta u leh ama horey ugu soo shaqeey. qodobka kale oo asagana aadku muhiimka waxaa weeyaan oo saddexaad, waxaad adiga suuqa kusoo kordhinayso. yacni badeecad suuqa kusoo kordhisay, adeeg baad suuqa kusoo kordhisay. badeecadaas iyo adeegaasi haddii ay cusub yihiin, suuqa ku cusub yihiin, tayadooda intay la eg tahay. haddii ay horey suuqa ugu jireenna, suuqa wixii horey usii yaalay tayada aad kaga duwan tahay oad kusoo kordhisa maxay tahay? tayada dhowr meeloodan ka raadinaynaa. waa tayadii caadiga aheedoo la yaqaanay oo adeegii laftiisii ama badeecadii ay lahayd, badeeco ka tayo fiican, badeecooyin kale suuqa la keenaad keentay, adeegyadii hore ka tayo fiican baad keentay, waa wax fiican. tayadii marka waxay kaa gelaysaa mararka qaarkood waktigay kaa gelaysaa. dadka xilligaad ugu adeegayso waqti badan maad ka lumisaa, waqti fudud maad wax ku siisaa, meeshooda maad ugu geysaa, halkaadi maad ku sugtaa. sidoo kale waxaa aad u muhiima iyadana qiimaha aad wax ku siinayso, tayadii buu qayb ka noqonayaa. suuqa maxaad kaga duwan tahay, ma ka qiimo fiican tahay, isla qiimihii miya? qodob aad u muhiim asagana inaad iska fiiriso la rabo, waxyaabaha lagu kala tegay ka mid tahay. sidoo kale waxaa aad u muhiimsan goobta aad ku taalo iyo goobta ay dadka ay imaanayaan, muxuu ah inay imaan karaan, inaad adiga u geynayso waxyaabahaas oo inaad fiiriso. marka tayada si fiican u fiiri, waxaad adiga suuqa ku haysid kan dariskaaga ama ka duwan yahay mis waa la mid. sidoo kale waxaa aad u muhiim ah runtii maaliyadda aad ku maalgelinayso qorshahay qayb ka ahayd, laakiin si gaar baan u bidhaaminaya. problemada ugu badan meelahay ka imaanaysa ka mid tahay inaad maaliyaddaada si fiican iskaga qorshayso, xisaab fiican oo isku dhudhufsata ay jirto. haddii aadan isku filneen inaad kaashato qolooyinka wax maalgeliyo, bangiyada oo kale, ama haddii aad heli karta asxaab aad deen ka soo qaadatid, taas ha kaaga sii fudud. haddaad lacala ku qasbanaato inaad deen soo qaadato ama bangiya aad la macaamisho, runtii waxaa aad u muhiima inaad isku daydo ilaa iyo heer inaad 40% ugu yaraan adigaad iska lahaato maalgelinta. 60% markaas kadib bangiyada ha ka imaado ama meelaha kale ha ka timaado. haddaad kasii yarayn kartana waa fiican tahay. mar walbo maalgelinta ay banaanka ka timaado, culayska aduu ku saaran yahay, faa'iidadaadi mustaqbalka bay soo daahinaysaa. marka intaadba ka fogaan karta inaad ka fogaatid runtii aaday iyadana muhiim u tahay. qodobka xiga afaraad runtii waxaa weeyaan inaad leedahay daryeelka kliyentigaaga. dad baa ku imaanaya, klientigaas adig gaarkuuma aha, dad fara badan baa suuqa kugula jiro. haddii aad maanta keligaa suuqa haysatidna berri suuqa keligaa ma haysan doontid. marka inaad si gaara u daryeeshid klientigaada, ixtiraam iyo qadarin iyo maamuus gaar aad u muujisid, inay usoo xiisaan imaanshaha meeshaada, inay dareemaan nasiino iyo qawow. waxaa laga yaabaa 2 meelood oo isku dhow inay ku kala doortaan bes soo dhaweynta, inay ku kala doortaan markay tagaan in koob shaah loo shubo oo la yihahdo fadhiiso oo xoogaa loo sheekeey. marka aaday muhiim u tahay inaad ku dadaashid klientigaada raaligelintiisii, qancintiisii. xaqiiqatan meeshaas waxaa ku jiro xayeysiinta ugu muhiimsan ganacsi uu helo. waa dadka adiga ku yimaada ee ka adeegta inaad qancisid, raaligelisid, iyagoo faraxsan ay meeshaada ka baxaan. waxaa laga yaabaa in ay degan yihiin meel ugu yaraan dhowr kilomitr ku jirto oo ay dhexda ku yaalaan 100 ama 10 nooca ganacsigaada oo kale ah ay soo gudbaan, ay soo dhaafaan. dad kale oo isla eridooda degan ay soo dhaafiyaan, ay soo gudbaan. sababtana ay tahay oo kali ah amaantii ay amaaneen, kalsoonida iyaga ay siiyeen, iyo qancintii ay ku qanciyeen adeegaaga iyo tayada uu leeyahay. runtii qodobkaas waxaan is leeyahay aad u muhiim u yahay. sidoo kale waxaa aad u muhiimsan inaad horumarin ku samayso waxyaabahaad adiga aada iibisid. adduunyada ma joogto, adduunyada isbedbedel joogto baa ka jira. maxaa keenay inay adduunyada socoto habeenii maalin walba ganacsi hor leh, maalin walba adeeg hor leh, maalin walba badeeco hor leh? maxaa keenay? hal cilad bas keentay. qofka wax iibsanaya bini aadanka ah ilaahay baa ku abuuray, waa isbedelku jecel yahay mar walba
iyadoo laga yaabo wixii inay isku mid yihiin waxaa laga yaabaa in adiga bas kalarka aad ka bedeshay bokiska aad alaabtaad iibinaysa bas inaad bedeshay bokiskii horey indhihiis u qabteen wuxuu ku leeyay kan ma raba kanaan rabaa iyo waa isku shaygi waa isku quality waa isku miisaankii wax kala duwanaansha waa isku qiimihii laakiin muxuu ku kala duway shalay baan qaatay marka inaad suuqa la jaan qaadid isbedelka aad la socotid runtii aad ay muhiim u tahay waayo suuqan isbedbedelkiisii waxaa keenaya isbedbedelka baahida customerkaada ama clientigaada marka clientigaada baahidiisa inaad la socoto aad ku qanciso adeegaada maalin walbana aad wareysato waxyaabaha uu dhibsanaya aad dhegaysatid waxyaabaha uu danaynaya aad dhegaysatid oo adiga aad noqotid qofka ugu dhegaysiga badan asaga inuu noqdo qofka ugu badan ee la dhegaysto runtii qodobkaasna aad u muhiim u yahay qodobka ugu dambeeya ee toddobaad waxaan is leeyahay waa qodob aad u muhiima waddankeenana aad ugu yar yahay ilaa heer mar hadda waa lagu soo baraarugay waa lasoo kacay sidii hore ma aha waa suuqgeyn in qofkan badeecadiisii uu suuqgeyn u sameeyo inuu wargeliyo dadka u baahan badeecadan inuu hayo badeecada noocan oo kale ah dadka u baahan adeegan inuu wargeliyo adeegan inuu hayo maxay kuu taraysaa haddii aad haysid badeeco tayadeeda aada u sarreyso adeeg tayadiisa aada u sarreyso laakiin uusan ka warqabin qofkii u baahnaa meel buu joogaa badeeco ka liidato ka tayo liidato isticmaala wuu ku dhib qabaa badeecadaadina way ku taallaa aday ku xaraysan tahay bakhaar ay kugu jirtaa waa dhibaato marka inaad gaari karto runtii aad ay muhiim u tahay waxyaaba badana la isticmaalaa si aad badeecada dadka u gaarsiisid hadda maasha allah waxyaaba aad u caanka ah warbaahinta ka mid ah telefishinadii raadiyoyaashii muxuu ahaa baraha bulshada sidoo kale waxyaabaha la isticmaala aadka muhiimka ah aanan aada loo daryeelin waxaa ka mid ah telefoonada in la isticmaalo in clientiga lala xiriiro telefoonada lagala xiriiro telefoonadooda laga qorto maanta waxay kaa gataan aad lambarkooda haystid runtii waxyaabaha aan aad ugu qanacay waxaa ka mid ahaa farmashi daradan wax ka iibsanayay maraan wax ka iibsaday bil kadib aan usoo laabtay su-aasha lii weydi waxay ahayd hore maad ugu adeegatay ha waa mahadsan tahay soo dhawo telefon numberkaada noo sheeg telefon numberkii baan u sheegay isla markiiba wixii laga gaday halkaasaa laga helay waxaan dareemayay in oo ay danaynayaan customerkooda ay la socdaan laakiin adiga waxa la rabo waxaa weeyaan inaad weerar ahaato inaad qofku ku yimaado telefonkiisa aada baarta maahane inaad adigii telefoonada la xiriirto ka warrama adeega ka warrama see tihiin dhakhtarada waxaa la sheegaa yurubtaas inay kusoo caanbaxday oo keli ah in ay clientigeeda la xiriiri jirtay oo ay wareysan jirtay xaaladooda caafimaadka daawadii ay siisay waxay ka heleen ilmihii caafimaadkooda ilmaha o dhan magacyadooda intay qorato bay hal u wareysanaysaa hebel ka waran say yihiin caafimaadkooda qof familiga ka mid a bayba noqotayba markaasaa kalsooni gaara ay dadka u muujiyaan marka runtii aad ay muhiim u tahay suuq gelin in la helo waayo tayadaada waxay ku xiran tahay suuqaas inaad gasho marka waxaa kaloo la isticmaalaa message inaad isticmaasho ood message u dirtid dadka ugu badan ee clientiga aad isleedahay saameyn baad ku yeelan kartaa waxaa la isticmaalaa emailo waxaa la isticmaalaa ebost macnaha boostooyin in wax lagu diro qaabo fara badan ayaa loo isticmaali karaa in aad suuq gelin u sameyso badeecadaada inaad sida dadka ay sameeyaan warqada aad daawacdid meelaha ku dhadhajisid waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha wax lagu xayeysiin karo marka waa qeyb ka mid a waxyaabaha keeni kara ama kaa caawinaya inay mashruucaada u guuleysto laakiin waxyaabo kale ayaa jiri karo aniga intaan iyo intii hore ayaan u sheegnay oo fashilka waxyaabaha keenaya kasoo horjeeday intaas ayaan isleeyahay waa qeybaha ugu muhiimsan inaan soo koobay oo aad wax ka faa'iideen aan rajeynayaa intaan ku kulmi doona xalaqo kale iyo Baghdad Online Academy halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu